Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Labadan muuqaal ayaan barteeda TikTok soo dhigay. Saaxiibo badan ayaa markaasi kasoo falceliyay oo isoo weydiiyay sida aan markaasi u sameeyo muuqaaladan. Marka maanta waxaan bari doonaa amaba aan baran doonaa sida loo sameyn lahaa muuqaalada noocan oo kaleeto ah. Wax weyn maahan, maanta aniga ayaa ku faa'iideyn doono oo aan ku fahansiin doono bilow ilaa dhammaad markaasi sida aan u sameeyay muuqaalkan oo kaleeto ama muuqaalada noocan oo kale sida loo sameeyo. Waxaan ka codsanaa in muuqaalkan like aad ii sarto, channelkan aad subscribe ii sarto. haddii aad hore ugu saarteen aad u mahadsantahay. muuqaalkan share garay si uu u gaaro saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto. ugu horeyn waxaa u baahanaa inaan soo duubno muuqaalkeeni. marka aniga waa soo duubtay, adina soo duubo. kadib waxaan aadaynaa qaybta CapCut-ka. marka muuqaalka originalkiisa sidan ayuu ahaa, ila daaw hal mar. sida u jeedaba waxaan duubayaa muuqaalkii koowaad oo aan markaasi ku sameyn doono muuqaaladii aan idin bari doono sida loo edit gareynayo. muuqaalka koowaad ayaan markaasi sameynayaa, waa u jeedaa saaxiib. haddana muuqaalkan marka aan ka baxno ama aan ka tagno waxaan duubi doonaa muuqaalkii labaad. anagoo meeshaas fadhiya ayaa isgediyey, waxaana duubi doonaa muuqaalka labaad oo aan markaasi soo dhexgelin doono muuqaalkeeni. marka sidaan ayaad adna u duubaysaa muuqaal noocan oo kaleeta ayaad markaasi soo duubanaysaa si aad isku dhexgeliso. marka waa inta markaa kasoo tagnana waxaa aadi doonaa CapCut-keena si aan u sameyno. ila soco, muuqaalkan aad waa sameyn kartaa, aad ayuu u fudud yahay. marka waxaan ka codsanaa in YouTube-ka subscribe aad ii sarto si aan u gaaro 10,000 oo subscribe. TikTok-na aad follow ii soo dhahdo. marka waa kasoo tagaynaa, waxaan imaanaynaa CapCut-keena. CapCut ayaan imaanaynaa. CapCut-ka markaa imaano sidaan noogu soo saaro, waxaa ku dhufanaynaa new project. meesha ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa new project. kadib muuqaalkaagii ayaad kasoo dooranaysaa. muuqaalkayga ayaan kasoo doortay, aad ayaan soo dhahay si aan muuqaalkayga halkan ayaan la keenay. muuqaalka originalkiisa waa ujeedaa sidaan weeye. marka laba muuqaal inaan ka dhigo oo isdhexgeliya ayaa u baahanahay. sidee u sameyn karaa? ila soco. qaybta hore ayaan iska jiray, waa iska daleeday oo markaas soo fadhiisanayay. haddana qaybta dambe markaa isgedinaya ayaan ka jarayaa. waa ka already qof walba sida loo jaro wuu yaqaanaa. kadib qaybta labaad ayaan ka dhiganaynaa muuqaalkan, waa ujeedaa. waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay dhexda ayaa iska daleeday. qaybta dhexda markaa iska daleeday waxaad raadinaysaa overlay meel ay ku qoran tahay. kadibna muuqaalka hoose ayaad geenaysaa, waad la ekeysiinaysaa labadoodaba. kadib waxaad sameynaysaa qaybta dambe ayaad iskula ekeysiinaysaa, waa iska jaraysaa qaybta aadan rabin. kadib intaan marabna waa iska daleedaynaa. marka waad daleeday, sidaa ujeedaba hal muuqaal ayaad halkan uga jeedaa. marka waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay maska. markaa aragto waxaad ku dhufanaysaa horizontal meesha ay ku qoran tahay. kadib waa gedinaysaa, labadaada far ayaad ku qabanaysaa, waad ku dhaqdhaqaajinaysaa, waa isdhexgelinaysaa. lama raba in lagaa dareemo. hadeertaan waa ujeedaa fallaartaas ayaa ku xukumayso, meesha aad dhigto ayay markaasi kusoo bixi doontaa. sidaan ayaa ka dhigay, waa daawanaynaa muuqaalka, waa arkaynaa. muuqaalka codka ayaa iska xiraynaa. kadib muuqaal kalena codkiisa waa xiraynaa. kis yar ayaan ka shakiyey, maaska ayaan kusoo laabanaynaa. xoogoo yar ayaan markaasi fallaarta soo sikeyey. kadibna waa kaa sidaas ayaad markaasi u sameynaysaa maalin walbo. codka iska xir, daawo. marka maalin walba ani wax ku anfacayaa kuu keena, laakiin adi subscribe iima saarto. intaasna waa iska kaftan. muuqaalkani sidaan ayaan ku sameynay, waa soo bixinaynaa, waana sameynay, waana ku guuleysanayn muuqaalkeeni koowaad. kadib muuqaalkeeni labaad ayaan u gudbaynaa oo sina markaasi ah koobka biyaha lagu shubay oo taleefanka ah. kadib overlay meesha muuqaalka ayaan soo dooranaynaa. koley qof walba u yaqaanaa intaas. muuqaalka originalkiisa ayaa soo dooranay. kadib kis yar ayaan afka hore ka jari doonaa. marka oo taleefanka la keenayo oo kaleeta ayaan iska jaraynaa si aan markaasi muuqaalka aan u edit garayno. intaas markaa iska jarno waa daleedaysaa. markaad daleedo waa kana taleefankii bikeeriga ayaan saaray, wax biyaana kuma soo dhicin. markaas waa kana waa ujeedaa biya anoo ku shubaya ayaan markaasi arkaysaa. sidaas ayaan markaasi arkaysaa. hadda waa
overlay aad ku dhufanayna hoos marka uu noo maro waa jiidayna xagga ayaan iska geenayna oo la ekeysiinayna muuqaalka isla asi kii hore oo kaleeto waxaad tegaysaa mask ayaad raadinaysaa asana mask marka ku dhufato horizontal ayaad ku dhufanaysaa kadibna bikerigaas waa gadinaysaa qaybtaas ayaa hoos marsiinaysaa qaybta bikeriga biyaha marka lagu shubayo okay waa la ekeysiinaysaa taleefanka hoostiisa ayaad geenaysaa adhow lama rabo in laga dareemo qaar badan ayaa u jeeday emoji-ka meesha ka qaad oo qosolka ah meesha soo saaray meeshaas wax yar iga qaldamay marka waa ka qarinay fahanteen oo qawanna marka waxa ka codsanaya inaad subscribe ii saarto okay marka sidaa u edit gareyso tijaab ahaan waa kana waa u jeedaa biyi ayaa markaasi soo dhici doona wow marka xogo yar boobsis ayaa ku jiro marka waxa sameeynayna qaybta biyaha ayaan waa soo sikinaynaa wax yar markii aad taleefanka saas u taabanayo in biyaha ay soo dhacaan ayaa loo baahan yahay okay kulli intaan qof walba uu sameeysan karaa kistan yar oo fahansiiska ayuu u baahan yahay qof walba marka waa u jeedin marka taleefanka u daasaas u daaraba biyi ayaa soo daadanayo kadib marka aad muuqaalka kore in slow motion xogo yar aad ku darsato waxa loo baahan yahay muuqaalka kore daqiiqada aad ka dhigtay inaad biyahana ku soo koobto marka ani qaybtan dambe waa iska jaraya ilaa fahamsiis baa rabtaan muuqaalka ayaan ugu dheeraanayo marka sidaas ayaad u sameeysan kartaa waa kana waa ujeedaa marka biyaha saas u daarano ay soo daadanayaan sir ayaa ku jirto laba muuqaal ayaa sidan isku dhaxgelinay saaxiibkaaga la wadaag si uu markaasi u fahmo please subscribe isar muuqaalkan like gareey u share gareey waa ka marka sidaas ayaad ku sameeysan kartaa mahadsanid